waxaa ka lafay isku dhac ka yimid deegaanka iyo qoladii hawsha waday dhexdooda khilaaf ka dhashay buu ku xirmay isbitaalka hadda goor dadka deegaanka waxa la isku fahmi waayay wasaaraddu iyadoo deegaanka dhinowda imaan bay dad kale ayaguna deegaanka ka mid ay soo qoreen dadka iyagoo watay meesha keenan dad kale deegaanka isku dhaceen sidaasna meeshaas ka horibaa dakhliga isbitaalkuna waa ku xirmay walaalayaal waa mahadsantihiin waxaan halkan galabtay inuu ku soo booqday wafdi uu hogaaminayo gudoomiyihii degmada Jariiban iyo xildhibaanada la socda annagoo reer dhinowda baan ku soo dhaweynay waxaana looga hadlay isbitaalka MCH-ka dhinowda oo in muddo laga xiraa khilaafaad ka dhashay deegaanka iyo qoladii wasaaradda wax waday dhexdooda wax ka dhashay oo ku xirmay oo in badan ku maraalista ku galay dib ugu dacwaday gudoomiyuhu hadda loo soo qaaday arrintoodii baa meesha galabta lagu soo gabagabeeyey waana la isku afgartay dib baana loo furayaa arrintaasaan hadda galabta meesha uga hadlaynaa waxaana sheegaynaa in lagu heshiiyey isbitaalka MCH-kana dib loo furi doono gudoomiyahana hawshaa uu xaliyey sidaasaan la socodsiinaa galabta gudoomiyaha degmada Jariiban uu hogaaminayo safarkiisu oo ahaa dhinowda arrimaha uu ku qotamo socodkiisu oo ahaa isbitaalka furitaankiisa oo in badan xirnaa isbitaalkaas oo u xirmay hadda ka hor mashruuc la keenay lagu heshiin waayay isfahan la'aan ka timaaday xagga wasaaradda iyo xagga deegaanka kabacdina xal loo waayo u xirmay kabacdiid gudoomiyaha baa maanta meeshaan wuxuu u soo aaday inuu isbitaalka furo haatan isbitaalkii waa lagu heshiiyey in la furo oo dadkii haddii la guuray looga faa'iideeyo marxaladiisu meel fiican bay maraysaa